kormeerkan uu maanta sameeyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Ibrahim Cumar Mahadalle Ibrahim Dheere ayaa u kurgalka howlaha shaqo ee ka soconaya xarunta sugunta Liido oo halka laga sameeyo warqadda dhalashada iyo sugnaanta iyo kastamka canshuuraha Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho halkaas ee ku sugnaa kaaba markaatiga ee kontaroolkaasi Maxamed Qowsaar gudoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Ow Cali ayaa gudoomiyaha uga warbixiyay kastamkan iyo waxyaabaha uu qabto maanta kormeer shaqo u yimid degmada Wadajir gaar ahaan qaybaha kala duwan ee lagu qaado canshuurta gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda asagoo si uu ku galo habsami socodka dakhli aruurinta hadda waxaan ku sugannahay kontaroolka Jasiiro waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan qaybaha kala duwan dakhli aruurinta dawladda hoose qaabka ay shaqada u wadaan iyo dardargelinta ay ku wadaan iyo gudoomiyaheena oo habeen iyo maalin baa u taagan ka shaqeynta dakhli kordhinta dawladda hoose mudana gudoomiye waa kaga mahadcelinaynaa soo gaaditaanka shaqo waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay isku tashi waxaan rabaa inaan mahadceliyo gaar ahaan kaaba marqaatiga Jasiiro asaguna qaadanaya doorkiisa ku aadan canshuur aruurinta gabagabadii gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Cumar Mahadalle Ibrahim Dheere ayaa waxa uu sheegay inay joogteen doonaan kormeerka noocan oo ay ku sameeyaan xarumaha canshuuraha iyo sidoo kale xarumaha dakhliga ee maamulka gobolka Banaadir maanta socdaalkeena wuxuu ku saabsanaa korgulid iyo xaqiijin sare u qaadid hanaanka dakhliga maaliyadeed ee gobolka Banaadir dawladda hoose guud ahaan gobolka Banaadir anagoo ka duuleena waxaa noo suura gashay inaan maanta kormeer aan ku limaano qaybo kamida meelaha ay ka soo xaroodaan ee dakhliga waxaan u kurgalaynay oo aan xaqiijinaynay inaan sare u qaadano dakhliga ka soo xarooda maadaama la joogo sanad cusub waxaan si joogto ah kormeerkeena uu ahaa doonaa bilaha soo socda maadaama la gaaray sanadka cusub waxaan farayaa saraakiisha qusaysa soo xareynta dakhliga inay si laabaan dadaalkooda canshuur si baahiyaha ku aadan shacabka ku nool ee gobolka Banaadir ee loo kaabo gobolka Banaadir wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo in dadka ay helaan adeeg hufan oo ay kamid tahay iskoolo lacag la'aan oo ay kamid tahay biyo nadiif ah oo ay kamid tahay caafimaad oo dib loo soo celiyo kaalintii ay lahaa jirtay gobolka Banaadir Abdullah Maxamed Sheekhdon Radio Tusmay Telefishinka CNN Muqdisho